إني فراها كبحضنا إلهي تبارك وتعالى إذن كيسي قدر كيسي كل عدا لكن أسباب يكون إيمان أسباب توحى كملة وقرآن كنت المامي حدان لقهر تجين وحي لبك كيني نبض خلخل قليني oo intii shayga la qaban kara aan la qabanin waxa ka dhashay dadkay wada gaari nin xun iyo nin wanaagsan way wada saameyn waxayna gaari heeraan waxba laga qaban karin sida rabbigan tabaaraka wa taala quraanka inuu sheegay wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna allaha shadidul 'iqab واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات فبيوحي تبارك وتعالى اسكتشر فتنو مركي تمادو أن أسيبين أو كريه انتي حمان تسمينيسي odayga kaaba qabiilka balaayada abaabulaha ku ekaan mayso siyaasiga kursigiisa u danaynaya moodaya inuu kursi u joogayo ku ekaan mayso ninka mas'uuliyadiisa xilkiisa gabayay waxba sheegi waayo ku ekaan mayso midka arkahaya dhinac marayeen dan kala hayn ku ekaan mayso dadkoo dhan bay wada gaari doontaa ta'ummu saaliha wa taalih nin xun oo qayb ku lahaa iyo nin wanaagsan oo bari ka aha intaba dabkeedu waa taabanaya markay wada gaadhana in badan bay xaaqi haday la tagtana nin walba amalkiisa iyo niyadiisa baa lagu soo saari doonaa laakiin adduunyo kharibantay galgalin lagu kala cararabay noqotay galgalin lagu kala cararay iyo jabad lagu kala qaxay bay noqotay lagu kala tagay waa dab وباهن إن لغه ارتقوا نبينا صلوات ربي والسلام عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه في صحيح البخاري وكان النبي صلى الله عليه وسلم تصالها عجبت بدن كبحيي أي مثل القائم في حدود الله والواقع فيها وفي لفظ والمدهن فيها إلهي حدودي سروح إلى لنا كنت حاجة إيا متك كرع هي حدود الشير هي تكيب اللينا يا ديك بدادنا يا وحبود ظلمنا يا حد قدب الصمينا يا يعني شريعتي وملك قدعيا معاصب وقليا أضونك حدود إلهي السودي مها تلابي إيا ميدك حدود كتاقنا إلى لنا ياي تصاله هذه الصفات النبي صلى الله عليه وسلم وحي يكلم كم من لمته كمثل قوم استهموا على سفينة سيدي ضد أي دوني كرنا حيسوكله وتصاله آدو عكس بدنوه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون صالياش النبي قالوا بحي عجبت بدن بكمت ضدك الدون باك الحيسا دون تكد حيساي لبض دبق واحد دبق كرة يدبق خوصي ولو قري تورتي ضدك قاركو دبقي هوسا أصوب حاجة قالين ضدنا دبقي كرة فولين كو دبق هوسا كجرة مركي بيه أبا هذان وإني دونت أنتي qaybteedu hoose ka soo baxaan oo jaran soo fuulaan mid qaybta kore yimaadaan halka waa inay badda biyaheeda ka soo darsanado biyo ka qaataan qoladii kore ee dabaqa kore fadhiday ayaa waxay yiraahdeen warnimayo biyaha waad nagu dhibteen war walba imaanaysaan biyaha darsanaysaan biyo waad nagu qoynaysaan waana rafaadiseen waana dhibteen hay saas taraatid naga daaya dhibka qoladii hadii sida la yiri waa isku laabteen oo waxay yiraahdeen hadii sidaas tahay anagu doonta meeshan biyi halkanayba ka dhow yihiin halkana baan ka dolooshanaynaaba meeshan ay nagaga aadan yihiin idinka korbaaba jirtaan anaga idinka dhow halkana baan ka dolooshan halkana ka soo dhaansanayna nabigu wuxuu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi qolada kore markay arrinka ogaadaan haday faraha ka qaadaan oo yiraahdaan shuriyaa iyaga khusaysa meeshay ka galaan baan ka galaynaa cirka soo dumi meeshaad ka gashaan ka gali faraha haday ka qaadaan oo u daayaan doontii way duleelinayaan haday duleeliyaan maxaa dhacay soo doontii biyo soo gali maayaan soo doontii quusi mayso degi mayso yaa ku dhimanaya marka manki doonta duleeliye kaliya ya maya
كل ووضع لمنيسان هلكوا جميعا بالنبي صلى الله عليه وسلم كل ويل أنا يا وبابايا markay arinta ka war helaan intay soo dagaan oo soo gurmadaan haday gacanta qabtaan arinkaanu idin ku dhacday war hana baabiinina war ka daaye way markaasi qabtaana nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam najaw wa najaw jamii'an ayaguna waa badbaadeen kuwii kalena waa wada badbaadeen kulligood waa wada badbaadaya doonta yaa duleelinaya marka anaga meeshan gaarisa hadaan joogno ama Kenya joogno ama meel kale joogno oo mujtamac musliman ah dadka doonta duleelinaya faaska u haystayay waa dadka macaasida iyo dunuubta galaya xuduudda shariicada tilaabaya odayga kaaba qabiilka ah ee balaayada ka taliya ee dadka dhiigiisa isku daadiya waa ninka koobaad ee doonta duleelinaya waa ka uu isticmaalayo ee dhiigga galaya ee dadka laynaya ee wax argagixinaya ee cabsiinaya doontii buu duleelinaya siyaasiga qaybta ka doontii buu duleelinaya wadaadka aamusay iyo muslixa aamusay iyo waxgaradka aamusay ee fiirsadayna doontii bay duleelinayaan waa qolada ka aamusay Soomaa qolada shib ka tiri way iyaga laftoodu dambiga kama baxayaan waxay u baahan tahay marka waxay u baahan tahay war doonta la badbaadiyo doontani maxay tahay inaga dhaxaysa doonta inaga dhaxaysa waa nabadda doonta inaga dhaxaysa waa xasiloonida doonta inaga dhaxaysa waa cuntada iyo barwaaqadan doonta inaga dhaxaysa waa waxbarashada doonta inaga dhaxaysa waa masaalixda inaga dhaxaysa haduu dib gaarana ina wada gaarayo doontu waa taa war doonta la badbaadiyo oo dadka sufahada wax magaradka ah gacanta la qabto midka ugu xigo gacanta qabo kay wada dhasheen oo gacanta qabo midkii ogaado gacanta qabo ku wax ka maqlayo gacanta qabo u naseexay hadii ka la qabo waayo Soomaa doontu baday galaysa biyahay galaysa haday gashana wabillahi tawfiiq warku waa dhamaaday macnaha waxa way cuquuba ilaahay baa iimaanaysa musiiba soo dagaysa talow ma dhulka idinkaga iimaan ma korba idinkaga iimaan ma idinka la isku kiindiri balaaya kici meelay ka timi aadan garaneyn kadibna aan la xakameyn karin waxa inugu dhacay waxa inugu dhacay hadda ka horna inugu dhacay magaalada gaaliso inta darfaha laga soo galo darfaha magaalada dhexeeda xabad la isku ridayo dadka la laynayo guryaha la galayo soo mardhow ma la noolayn soo hadda mardhow ma ahayn hadda mardhow ah balaayadii sidaas ahayd iyo qaskii iyo qabaa'ishii iyo balaayadii isiryanay su'aashu waxay tahay dani ugu jirtaa amniga in la khalkhal galiyo li maslahati man ya ka faa'iiday ahad ka faa'iiday ma jiro hatta mufsid ka doonayo inuu wax qaribo wax qaso asaga maskaxdiisa waxa ku jirta waad ka faa'iidi laakiin walla inuusan ka faa'iideyn waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wasalaam alayhi inuu yiri laba cuquubo laba dambi ma jirto dunuub kale oo xagga cuquubadu ay uga soo degdeg badan tahay ayadoo lagu daray aakhira waxa loo kaydinayo ruuxa galay laba dambi ba ugu degdeg badan in nafsigoodi iyo cuquubadoodu soo degdegto ayadoo cuquubadii iyo cadaabkii aakhirana laaban yahay labada dambi maxay yahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam al-baghy wa qati'atu ar-rahim qaraabo goysnimada ruuxu inuu noqdo qaraabo goys keligii cuna ah oo qaraabo aqoonin oo ehel aqoonin cuquubada aakhira la sugi maayo adduunka laga goyn way soo degdeg talabaadna waa baqiga iyo gardarrada waa dulmiga waa xadgudubka waa dhiiga bilaash ku daadanaya waa dhac bilaash la isku dhacayo waa leynta bilaash la isu leynayo waa fitanka la kicinayo baqiga iyo xadgudubka iyo dulmigana iyo gardarradana ma daahdo cuquubadeedu way soo hormartaa hadaan marka dulmiga la daynin oo gardarrada la joojinin oo ka wada aan la qabanin oo loo naseexaynin oo lagu dhawaaqin على أقل تقدير نبي نوح صلى الله عليه وسلم حديث كي جرير بن عبد الله البجلي عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وغيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما تشرت
khati'o iyo dambi iyo macsiyo meel lagu galayo meeshaana ay joogaan dadka galaya dad ka tiro badan kana xoog badan oon markaa doorinin oo waxba ka qabanin ilaa hadday jirto Allah wuxuu ku camimaa oo wada gaarsiiyaa cuquubo iyo cadaab mid baa wax qasahaya waa la qaban karaa koox baa wax kharibaysa waa la garanayaa waa la qaban karaa waa laga tiro badan yahay waana laga xoog badan yahay waa loo aamusay nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi wasalaamu calayhi cuquubada halka ka dhalatay way idin wada gaari wayna idin wada camimi cadaab ilaahi baa idin ku habsanay talow xageebu ka imaan doona Allahu a'lam in marka mafaasida laga hortago fitanka laga hortago bay u baahantahay arinta Soomaaliyeed hadda aragteen in waxba laga qaban laayahay jin iyo insi ismadoobe iscadee oo jirjiroolo iska dhig wax kasta samee waxba laga qaban waayo maali waxa jira wax laga qaban karay Soomaalidu waxay yiraahdaan balaayo dimna la qabtay leedahay hooyo daba la qabto male sooba xagga hore ka hortag bay leedahay laakiin ka daba tag male marba haday fakato عجز العقلاء عن دفعها وحقرتكم مركز ميشا وكبحيان سفهذا إيه وحمقرتك اسكو سوهري خلاص نول بمركة وحوليه لفاها كلفك وعر فيركيسي علميه سولا عر هيا وبالله التوفيق الكاسي كبابي للبابا ودالبابا وددبابا وحمد اغنى والحل بي وحكا قبل لذو وحلقا قبط ونول بمستواها اي اوتشوكتو وحكا قبطو وهلا يسوقو تغو dhiiga la daadinayo ee muslimiinta ee lagu fududaanayo ee dhul dartii loo daadinayo ee balood dartii loo daadinayo ee qabaa'il isaysa darteed loo daadinayo ee siyaasad darteed loo daadinayo mas'ala sahlan ma ilaahay agtiisana kuma fududa tabaaraka wa tacaala la zawalu dunya ahwanu ala allah min qatl mu'min adduunyadani inay baaba'do zuusho oo tiranto ayaa ilaahay agtiisa kala fudud hal ruux oo muslima dilkiis adiga balood xun iyo waxa ka hadlaysaa dhul xun oo qiimo lahayn war adduunkan oo dhan oo tirtirma dhulkiisa iyo cirkiisa iyo buurihiisa iyo barihiisa kulli inuu baabo ba ilaahay kala fudud tabaaraka wa tacaala hal ruux oo muslim oo dhigiisa la daadiyo arintaasina si fudud ilaahay ku mari mayso si fudud intay ku socoto natiijo la'aan inay saa isaga dhamaato ha filin saa ku mari mayso dhiig ba xaraama la daadiyay waa la sheeray qabaayil ba islaynaysa maya arinta iyada waxay u baahan tahay in cilaaj loo helo xal loo helo juduurteeda in la helo xididadeeda la helo xal laga gaaro mas'uuliyaduna waxay saaran tahay dadka wax garadka nin walba mustawaha heerkiisa heerka kolba ninka mas'uulka macna wax weeyaan yaani wax siyaasadana mas'uul ku ah ninka culimada ninka wax garadka ninka odayga nin walba heerka mas'uuliyadiisu ay tahay buu ilaahay kula xisaabtami doona tabaaraka wa tacaala in marka la isu taago mujtamacan in la badbaadiyo nabadiisa la badbaadiyo dhiiga muslimka laga fogaado hadday dhacdo kooxa muslima inay iska horjeedaan ama qabaayil iska horjeedaan dawrul islaax waa inuu jiro dawrul islaax heshiisiin badbaadin dhex orod la hadal u nasiixayn kala badbaadin ila ilaahi tabaaraka wa tacaala madhihi muslimiintu isma laayaan way islaayaan shaytaan iyo naf baa ka dhex adeeg wa in taa'ifatan min almu'minina iqtatalu islayn way iman laakiin maxaa leeyahay فاصلحوا بينهما اوي ددكي كلا دوركودي marka kaalintii away mujtamaci kale qabaa'ishii kale dadkii kale away ma reebel waligood basaasay sameyn jireen iska dhaaf ayaga carrada soo cabi doona soo taabtaan waraday soo taabtaan adna waa soo taaban haday soo taabtaan adna waa soo taaban shaki male beerahan qurqurxsan iyo guryahan iyo barwaaqadan iyo waxbarashadan iyo waxan isu kiin saaran warnimayo meel badan lagu dhul badan lagu ma haysto war wanaagani meel badan ma yaalo adduunka kamida war wanaaga hal ilaashado nabad hal ilaaliyo oo nabadgeliyada cidda dhaawacaysa ee shariicada rabbi tabaaraka wa tacaala meel kaga dhacaysa ee ilaahay ka cadhaysiinaya ee dunuubtaasi inay isu bedesho cuquubo isu bedesho sababta u noqonaya hal qabto hal ilaaliyo Allah tabaaraka wa tacaala quraanka u fiirso wuxuu yiri alladina aamanu
ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ذاتك أهل التوحيد إيمان كودون السعسية ذاتك أمان كالواقوة ذاتك إيمان كالتوحيد كوسعسية شركك إيا الظلمات كإسك إلالي ذاتك إلهي وحي كليهن آخرية أدون بإنو أمان سيو ذاتك أتالك ويصوما الله تبارك وتعالى أنت آخر لقارن به فتن كاسو كو امتحانيا ولها ساللدعيا بركا iyo qaarahaasa qacda laga saaraya cuqubada rabbi baa ku soconaysa tabaaraka wa tacaala marka waxa loo baahan yahay walaalayaal masalada inaan ahmiyadeeda dareeno shayga ififaalihiisu markuu muuqdo oo mid iyo laba iyo uu marmarayo oo uu guuxayo oo wax weyn dhicin baa la rabaa in culays la saaro state waxa jira haduu dhaafo aadan waxba laga qaban karin mar bayna kula taala culimada iyo ducaada dowrkoodii kaalintooda ha qaateen muslixiinta ummadda islaaxiye waa iyaga rabbina wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmin wa ahluha muslihun Allah tabaaraka wa tacaala magaalooyinka iyo mujtamacaadka ma halaago dhulmi sababtiina kuma halaago ayaga oo dhexdooda ay ku jiraan dad wax islaaxinaya dad wax saxaya dhawaaqaya heshiisiinaya dhiigga badbaadinaya ummadda isu soo jiidaya hadlaya wax qabanaya dad wax islaaxinaya wax saxaya intay ku dhex jiraan halaagi maayo dulmi ay galeen iyo dambi ay galeen oo halaagma laakiin goorma la halaagi markii dadkii muslixiinta ahaa la waayo wax hagaajin lahaa kuwa iska tukada dadka ku dhex jira mujtamaca kuwa waxba aan islaaxinin oo fasaad soo socda aan ka hortagin laakiin ayagu iska wanaagsan way tukadaan sakada waa bixiyaan xajka waa aadaan waa soo cumraystaan reerkoodii gurigooda waa ilaashan yahay ganacsigooda xaraan ma galaan waa iska saalixiin waay laakiin muslixiin ma aha saalixiintaasi idinku dhex jiraay wax badan idinka badbaadin maana saalixa laftiisa la kici miinadu markay qaraxdo صالحاسي والله لك لكن مصلحة إلهي تبارك وتعالى سيبتي سمجتمع كبد بادنية وحانا كتصي حديث نبي صلوات ربي وسلام عليه في صحيح البخاري وغيره نبي صلوات ربي وسلام عليه همين ندى كم يظهر ذا كسر بوذي مرقاس النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب عرب هلاك باكو دحي شر نوادي فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج هكذا ابن صلى الله عليه وسلم ياجوج وماجوج صدقي كو أودنا بامانتا وحا لغا فري انتا سو كلام النبي صلى الله عليه وسلم عرب مانتا وا ودبات ويل للعرب من شر قد اقترب ورددو كسو بود النبي صلى الله عليه وسلم markaas waxay tiri xaaskiisa Zaynab ya rasuul Allah an nuhlaku wa fiina as-salihun oo rasuul ilaahay oo ma anagu inugu jiraan dadkii wan wanaagsanaa baan la halaagi maxaa saalixa maxaa caabid ah maxaa zaahid ah maxaa caalim ah maxaa meesha wanaag yaal maxaa musalli tukanaya maxaa umraysanaya maxaa xaj socda saalixiin baabana lagu jiray mana laagay anagoo saalixiinta nugu jiraan nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam na'am idha kathura fiikum al-khabath xumaanta iyo macaasidu hadday idinku badato saalixiinto idinku jira leedin halaagi nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiisku wuxuu tilmaamay marka saalix baan dhex jooga sheekh baan ahay caalim baan ahay daaci baan ahay waan tukada waan daacad badnahay wax badan mujtamaca islaamka ugu ma tirna laakiin waxa wax ugu tiran oo muhiim u ah oo ilaahay ku badbaadinaya masaa'ib fara badan kaga badbaadinaya inaad tahay muslix waxagaajiya u taagan ordaya allaya soconaya isu soo jiidaya dadka isfahansiinaya shaydaan iyo fidnada ka hortagay taasa wax weyn mujtamaca muslimka ugu fadhiya culimada waa in dowrkooda ay qaataan iyo ducaada dadka wax garadka ah iyo odayaasha wax garadka ah waa inaan sufahada la isku sideyn hadday taladu dad aan wax garad ahayn gacanta u gasho dhulku waa fasaadaya ilaahay kaba dhiga tabaaraka wa tacaala haddii fasaad yimaadana ninna ku barwaaqoobi maayo qabiilna ku nicmaysan maayo qabiilla ku dhergi maayo kooxina haysan mayso ninna faa'iido uguma jirto war maslaxada caamka ha la wada ilaashado danba inoogu jirta nin walba inuu dowrka kaaga aadan iyo kaalintaada qaado waqtigaan inta ka badan saamaxaynin Allah tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu hadalka kiisa wanaagsan amal falkiisa waafajiyo
wixii sharana ilaahay tabaaraka wa tacaala naga dafciyo wixii wanaagana nawaafajiyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala amaan hana siiyo wixii dhib nagu wada oo ummadda dhibaatadeeda doonayana ilaahay ha ka qabto tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa inta dhibaatada wada ama wadi doonta ama doonaysa inay ka qayb qaadato ummadda dhibideeda ilaahay inuu soo hanuuniyaan weydiisanaynaa hadduusan ilaahay hanuun la damcinna ilaahay ummadda ha ka qabto aamiin dhah hadduusan ilaahay inuu hanuuniyo uusan rabin oday kaaba qabiila ha noqdo siyaasi ha noqdo ganacsado ha noqdo nin kale ha noqdo ninka ummadda inuu dhibo doonayo ilaahay waxaan uga baryaynaa tabaaraka wa tacaala hadduu hanuun u qadarayna inuu soo hanuuniyo hadduusan hanuun u qadarina inuu ummadda ka qabto taasaan ilaahay weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala جزاكم الله خير وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يدانسكن ملك صعب يالان قلوب مذوبين هان منافق نما بيراين وواحد لعب سنيني أنا عقوبة لا سود دقت وحلا ترين كرمة أنا وطاس كعب سنيني يا بريهان سجار هانات وحصوكر لي ديك إسلام ده شديد المغلسين شيخ حديثي يوحي مارة آياتك نقود الأخرية نين مسلمة شنتيس صلاة تكذي قريس أوهيدي قلبيسو لا يابون اسكسافي هاي ما كانت أصوك عدي كركا كجرتي عقوبة داس ما واحد لاني إنا مارة بلاش قدعي ما إنا يداهي وهذه أنا مارة قداشيس سيدا ضربته هذا قبر واقوبي أرلادن متاسا مارة عقلي متاسا طول لغو فكره كره تاس مياد لاني سان واحد داهي كرو المغلسين شاقة حديثة ونود الأخرية وحيالها سود دقدوة إنا يكمتها هاي أرنتاس نينكا مركز سوحون فكري لباتادا محاكا دنبي مطلول لسكوها أيوة مركز سياسة كدنبي لبضا وحي دحاشين ونهلاك أما مطلول لسكوها قبصدها هذا أما وحي هذا marka walaalayaal waxaan rajaynaynaa oo maaragtay ka codsanaynaa walaalahan kelimooyinkan ajaladan duubeen bal usbuuc iyo laba usbuuc inay maaragtay magaalada ay ku bahsanaato oo aad loo dhageysto dadka muslimiinta waxaan ku boorinaynaa ajaladan in la duubto oo guri kastaaba maaragtay laga dhageysto intaas kadib su'aalooyin dhowr ah sheekh weydiinaynaa inta waqtiga iska dhamaaday su'aasha koowaad ninba wuxuu leeyahay هل تنفذ الحدود في البلاد التي ليس لها أمير رسمي كصومال كحد السرقة وشرب الخمر ونحوهما حدود لقوم أوفيني بلاد أما ما لها آن كجر أمير رسمي يسد الصومالي وكله نك واحد وقعان لك مجوني كرا أما نك قمر عبو نك سؤال شاسو شيخ ويدين هاي شيخنا مارتي حقوق سنينا ونوجه وجزاه الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم حدود شرعية وحيالها لوغو تلقلي زواجرت أمر روادعنا لوغو تلقلي مجتمع كيس فلاقوبي وحوغا وانا وحشيك وحوتر رواية إن وحلقا قبط الله تبارك وتعالى قرآنك وحينه الشيء ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب نرول بايدين كتشرتاني حد دولك كوركي سلقو أوفيو وإلهي حدود دي سكملة بعدتك دولك الدقان أوغا خير بدن أفرتن مالمود إن روب لسيو هل حد وصي حق الله فليه فإذا ذي كيه ليها حدود الشريعة مركوا قال فهمي ويدي يقال الرع ويفهم ويان مقاصد كتشرته حدود الرب تبارك وتعالى وعين كتوصي علم درضه دي عقل حمضه حدود مركل لأوفينا يوحي أباهنتا هاي ضوابط هي شروط سيئة لوغا قارو مصلحة دي لوغو تلقلي مفسدة إيا لبنا أينا ونقنين وحكم إذا شروطاس إن أود حدود فلين كرتا أي جرتو هذين أودي تشرين
markaasi xuduudda fulinteedu waxay isu bedeli kartaa mafsado oo dhib baa ka dhalan kara ka weyn maslaxadii laga filayay yani xuduudda fulinteeda maslaxadii laga filayay dhib ka weyn baa ka dhalan kara shuruudeeda marka waxaa ka mid a inay jirto jihada xuduudda fulinaysa inay tahay jiho awood leh oo muxuu ahaaye meesha iyada ah sulto iyo awood ku leh oo aan xakamayn karta wax kastoo ka imaan kara xuduudda iyada waxaa shuruuda ka mid a in la mariyo xadda oofinteeda xadda intaan la fulinin ijraagii iyo dariiqii shareecadu ugu tala gashay ruuxan xadda lagu fulinayo ilan dariiq baa la mariyaa qaab baa lagu xaqiijiyaa jariimadan dhacday ee xaddu ka dhalanayso jariimadan xaqiijinteeda processkii iyo dariiqii shareecadu ugu tala gashay waa in la mariyo ninka qaadaya ee keeska qaadaya waa inuu yahay nin qaadi ah oo aqoon u leh nidaamka qadaaga laana xuduuddu waa naf la goynayo waa jidh la jarayo yacni masaalix baa ku jirta marka waa inuu yahay ruux aqoon u leh cilmiga qadaaga iyo sida loo xaqiijiyo iyo fulintiisa iyo waxaan garanaya waa inuu yahay dawaabita iyo shuruuda shareecadu ugu tala gashay markii la mariyo xuduuddu masaalix waa haddii shuruudaha iyo dawaabidda shareecada qaar ka mida la fududaysto ama la waayana xuduuddu markaasi meesheedii ma dhacayso qaabkeediina uma dhacayso wabitaali mafaasid baa ka dhalanaysa ay shareecadu dafcisay ama ay diiday wabillahi tawfiiq ninkan wuxuu leeyahay waa hore ayaa waxaa iga tagay 3 maalmood oo soon ah marka 3daas maalmood ayaan soomaa mise wax ayaan soonka raaciyaa soon hadduu kaa tago horta hadduu kas kaaga tago waa ismi iyo dembi weyn hadduu kaaga tago cudurdaar ama safar ama xanuun ruqsooyinkii shareecadu bixisay ama islaan uur leh ama muxuu ahaa islaan nuujinaysa maca cudurdaaradii shareecadu bixisay marka aasi ma tihid laakiin waxaa la doonayaa laba gooraba in si degdega loo qalleeyo si degdega loo qalleeyo khaasatan intuusan kugu soo gelin ramadaankii kale sida xadiidka caaisha laga fahmayo hadday dhacdo inuu ramadaankii labaad kugu soo galo ama ramadaan labaad iyo mid saddexaadi kugu soo galo adoon waday qallihii bixinin waxaa laga rabaa inaad 2 arrimood isku darto kow inaad towbad keento waad khaldantaye oo ilaahay dembi dhaaf weydiiso dibdhigga aad sii dibdhigtay ilaa ramadaanadani soo galeen aasin baad ku tahay dembiila haddaadan markaa cudurdaar lahayn ta labaad waxaa laga rabaa inaad qallayso maalmihii kaa tegay wax ma lagu darayaa culimada qaar ka mida qaba in la raacinayo cunto laakiin ra'yiga dhahayo cuntaha la raaciyo waa daciif daliilna ma leh keliya waxaa laga rabaa maalmihii ka tegey intay dhannaayeen inuu soo qalleeyo hadduu dayacay oo isagu oo soomi kara xilligaa ka hor uu dib ku sameeyo oo dib dhigay isagoo ka hor soomi kara hadduu dib dhigayna ismi iyo dembi baa ku jira ha toobad keeno labada arrimood inuu isku daraa la doonaya wabillahi tawfiiq wuxuu leeyahay ninkan sheekh heshiiska dhexmaray Soomaali galbeed iyo dawladda Itoobiya seed u aragtaa maxaase diintu ka qabtaa heshiisyada noocaas ah bismillahi rahmaani rahiim dadka muslimiinta ah ee gaalo la dagaalamaya ee dhul islaam inay ka saaraan u dagaalamaya xaq bay u leeyihiin hadday fiiriyaan oo ay daraaseeyaan oy ula muuqato dagaalku inuusan maslaxo keenaynin oo inay nabad qaataani ay ka maslaxo badan tahay xaq bay u leeyihiin inay go-aankaa qaataan cid bannaanka ka joogtoon masaalixdaa qadarinaynin inay bannaanka ka ictiraadana
arrin munaasiba ma aha ruuxa meesha jooga isagaa garanaya raggu waa rag culimaa waa rag wax garanaya waa rag muddo dheer arrintan ku soo jiray intaan ka warhayo 20 sano ku soo jiray hadday ula muuqatay dagaalkii ay wadeen inaysan midho ku gaadhin dhul ayna ku qabsanin waxna ayna ku xaqiijinin ayagii raggoodii ducaadaha iyo culimadiina ku tageen dhulkii ay joogeenna laga saaray dadkiina ay u hadheen keliya tajahli iyo khuraafo iyo kaniisad iyo hay-ado gaalaysiinaya dadkii ay u hadheen iyagana bannaanka jira dhul ay qabanayaanna uusan jirin hadday u muuqatay war waxaan xaqiijinayna ma jiree dadkiina waynu ka dhex baxnay aynu dib u noqono ummadii aynu dacwo iyo diin gaarsiino maslaxo way sideedabana dagaalka iyo jihaadka waxaa loo jideeyay inuu xaqiijiyo masaalix sooma inuu masaalix xaqiijiyo maxaa la yidhi xataa laa takuuna fitna wayakuna addiinu kulluhu lilah يعني لا دغالما الى ان فتنه لهلين ما laga wadaa fitnada dadka oo diinta laga fitneeyo laga wadaa shirkiga laga wadaa gaalnimada laga wadaa daacaduna ilaahay dhamaanteed isagu uu yeesho la dagaalama tayib dagaalkaad waday hadii inuu midho keeno oo dhul qabsado oo tawxiid xaqiijiyo oo dad fitna ka badbaadiyo iska badhaaf asagii uu sabab u noqdo in tawxiidkii laga fidno oo dadkii diintii la gaarsiin waayo oo isagiina waxba qaban waayo sharaacadu waxay qabtaa oo qawaacideeda waaweyn ka mid ah fi hada alxaal waxa laga maarmaana icaadatu nadar inaad ku samayso camalkan sooma camalka aad wado waa inaad dib u fiiriso laana waxba ka khaldan dagaalkana waxa loo jideeyay inuu dacwada xaqiijiyo dagaalku waa wasiilo jihaadku waa wasiilo gaayadiisuna waxa weeyaan waa dadka inuu tawxiid ku gaaro sooma hadii gaayadii loogu talagalay inuu dagaalku xaqiijiyo oo iyadii dhibo oo iyadii baabi'iyo oo iyadii meesha ka saaro waxna uusan soo kordhinin dagaalkaagu wuxuu u baahan yahay inaad dib u fiiriso waxba ka khaldan waxba ka khaldan وبالتالي hadday walaaluhu intay fiiriyeen oo miisaameen ay u arkeen maanta inay heshiis galaan oo dadkii dib ugu noqdaan oo dacwadii gaarsiiyaan oo jahliga ka saaraan oo tawxiidka fahansiiyaan oo shirkiyaadka kala dagaalamaan halkaasi hadday door bideen oo xabadii ka door bideen ahlu makka adra bi shi'aabiha ayaga arintooda u ogaansho badan ayagaana taladooda u ogaansho badan ayagaana go'aan ka qaatay waxata lagu naqdiyo weyn oo galeen oo leeyahay khaladkaasay galeenna aniga iima muuqato wadcigoodii waaqicooda marka la fiiriyana munaasab bay u ahayd inay maanta qaataan nabadda masaalix fara badan halka ka raadiyaan oo inaga dhaanay idan yar hadaan inaga dhaanay Kenya dacwahan diin ahaan faafida dadka wax fahansan wacyiga mujtamaca inaga ku dhaanay maanta ma ku talin lahaydeen dagaal aan gaarisa ka bilow ya mala hadda baqaysaan ha ma dhigi kartaan sooma hadaadan qabin in gaarisa iyo northeastern iyo wadankan iyo dagaal laga bilaabo waxaad u garowsan laadahay meel ka sii liidata in dacwo la door dido oo u xamaasaysan tahay abuurka afka uga tuuraysa muxuu yahay مسألة يعني مقارنة بسيطة واحد مسألة وين ما بقى مسألة وحوية تخضع للمصالح والمفاسد يا ميزامية أهل كذا ميزامية حتى يقول رجحنتو لهم الحق حتى يقول رجحنتو إن السلاسة مصلحة وكترتو حق بيوليه إن يقاتان وبالله التوفيق وحولي هاي ننك سائلك وحولي حكم كيسة من علم الشيغاني oo ehlu cilmi uu yahay isku wado haddana maartay u shaqeeyay masaalixda ama maslaxada qabiilka asoo ka baqi loo faa'iideey jazaakumullahu khayran
بسم الله الرحمن الرحيم روح يسوى علمي له وأقول له haddana cudurku waa geli karaa soo dhaqaatiirtu ma jiradaan ya dhakhtar ma shardi baa inuu caafimaad qabo shardi ma aha dhaqaatiirta qaar baa jiran wabitaali ninkii isagoo culimo lahoo aqoon leh ayuu haddana jiran karaa oo cudurradaasi geli karaa xasad baa geli kara qabyaalad baa geli karta waxbaa iska geli kara soo ma laakiin wuxuu u baahan tahay waa un cudur daawo u baahan wuxuu u baahan yahay nin ka fayow inuu daaweeyo dhakhtar ka fayow baa daaweyn soo ma ilan dhakhtarkii jirada dhakhtar kale loo diraa marka kan ka fayow baa la rabaa inuusan walaalkii uusan dhaleecaynin inuusan caayin inuusan tuurin jiraa ku dhacday jiradii ha laga saaro asxaabu rasuulillaahi sal alla alayh wasalam ayaa marmarka qaarkood ayagoo ummadda ugu khayr badnaa baa marmarka qaarkood xamiya qaadi jirtay soo ma marmarka qaarkood xamiyada ragga qaarkood qaadi jirto la garanaya iyo xawaadis ay leedahay marka yaani wax weeyaan ma aha arin la isugu garaabo oo ruux waa ku saxsan yahay la dhaho waa saxsan tahay reerka ka mid noqo oo la soo tali oo barnaamijkooda qayb ka noqo waa ceeb weyn haddaad nin culimo tahay nin daaciya tahay ilaahay tabaaraka wa tacaala cilmiga aqoon diinad kugu sharfay inaad ajende reer wato aad qayb ka noqoto waa ceeb iyo dhaleeca weyn waa ha ahaatee haddana xalkeedu muxuu yahay xalkeedu waxa weeye waa ruux muslim ah oo khalad galay khaladka ha laga soco ha loo naseexeeyo wabillahi tawfiiq su-aalaha way badan yihiin su-aashaan doonayna inaan kusoo fatino wuxuu leeyahay saa'ilkan nooca dee sheekh dagaalka u dhexeeya shabaab iyo amisom maxaa farqiga u dhexeeya dowladda shariif iyo dowladda cabdullaahi yuusuf بسم الله الرحمن الرحيم idinka dawlad shariifna kama tirsanin dagaalka meesha ka socdana qayb kama tihin marka waxaad u weydiinaysaan ba garan maayo allahumma haddaad rabtaan inaad ka qayb gashaan ma qan farta ha taago ninkii doonaya inuu ka qayb galo ma taagi karaa maya jawaabtu waxa weeye asal ahaan shariicada islaamka dhul muslimiin ay leeyihiin gaalo ku soo duushay in laga celiyo asal ahaan waa mas'ala aadan hadal ku jirin waa yaa ka celinaya dariiqee looga celinaya waa mas'alada la dhihi karayo waxay u baahan tahay xaqiijin aan caadi ahayn waana meesha aan leeyahay wax badan baa ka khaldan dagaalka Soomaaliya ka jira wadaad ha wado gaal dhul islaam tagay ama Soomaaliya tagay garawsho male nin soo kaxaystayna garawsho male laakiin ka horjeeday la dagaalamaya dariiqii saxda ahaa ma hayo dariiqii saxda ahaa ma hayo ehelkeediina ma aha qadiyadana waa qadiyad naazila ah naazilana culima iskale see loola dhaqmi maxaa la dibdhigi maxaa la hormarin maxaa munaasib ah maxaa laga tanaasuli qadiyad culimo inta aan ogsoonahayna culimo shaqo kuma leh mana hogaaminayso waana la fogeeyey inkastoo aqoon lagu tuhmahay meeshaasi tala badan kuma leh ibn al-qayyim alayhi rahmatullah wuxuu yiri seef aan cilmi hogaaminaynin waa waran nin ciyaaraya uu wato waa waran nin ciyaaraya uu wato falaadahay jihaad aan cilmi hogaaminaynin jihaad ma waqtigan maanta la joogana jooga nin dhalinyaro oo xamaasooday oo fakaday mafaasid fara badan ummadan uu soo hooyini shaki male inxiraafaad fara badan iyo afkaar fara badan oo khaldanna meesha waa ku jirtaa afkaar aan sahlanayn oo halis ah baa meesha ku jirta ma tabriirinayo oo dhihi maayo
قال وطن إسلام صوق علي إيه نين وطا لما تابن كرو مدهيو أصل كوا إن لقى صار وطن مسلم كلا عليه أصل كوا كا لكن هذنا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا بالضبط كوا إذا لا تقالما يا لا تقالما لكنها حد بنا على قولها حد بنا حد بنا دقيت كاس وحوي طريقي نبيك هي شريعة مرة أنا خلافنا حدا طريقي نبيك هي شريعة خلافته تبريرنا أتكلم تقال على الإسكالينية يعني دنبي أمضى العقوبة إذا كوها بسندونا القيب كتاه إن هذا مرات كلمته أو نصرة كلمته أو وطن كسر تسكبر نافع قيب وحد كتاه مصيبة أمضى كوها بسنيس وحد صوت دي بلايا صوت أنا مسهلنا إن بدنا وانسليه wax badan oo laga yaabo maanta inay idin ka qarsoon tahay oo laga yaabo dad badan oo judbaysan oo maanta xamaasaysan inayna la soconin wax fara badan maalmaha la sugo ayaa fara badan maalmaha ayaa muujin doona wax badan oo jihaad u muuqday musiiba ka dhacday maxaa Ciraaq ka socda maxaa ka socda male fiira male tixgelin male maxaa ka dhalanaya male Kenya soo masaalix fara badan muslimiintu maanta kuma haystaan soo mujtamac degan ma soo intii wadan ka soo qaxday kuma noola waxa aad u fudud wiil yar oo dhalinyaro intuu soo ordo inuu meel qabax wax yar ka siiyo برينا حمر لقى هذول اللي يراد أنا قاعد حين نيروبي ورمعات سميسي وحموس سميني يا أوقع عن قلي محا علماء محا يعني وحوي محو هاي أهل الدين محا مساجد محا دعوة محا أمتي محا قناع الستار خلاص طلق ملك ها وجهادنا بالوركاس جهاد ما وانا لا دغالمايaan oo xaqay ummadanadii ku burburinayaan annagana halkaasaan ku garaacayna haye maxaad keentay xaqana waxa ku baaba'aya waa ummadii halkan markaad wax yar samaysana waxa ku baaba'aya waa iyagii yaad wax yeeshay waa yaad wax yeeshay ogaana soo qarax kama dhicin una soo qarax uga dhicin طيب dawladda Uganda maxay ku noqotay dadkii dhintay meesha ku dhintay maxaa u soo gaaray وزارة مياه بربورت ما الدولة ده بربورت واسيدي دي شعوب تاني هذي بعض حتى الدولة ده هندن كماله حتى الدولة ده عدان كي الرأي روكا كدن قضت كودا دن كما إلها نعم كودا واكسروني لكن محا كذا شو مفسدة تدكي شوق المسلمين تهلا دب لحد قار لتهون كنا عسيقودي قحة صاع عرارة رولكي لقى كلا عر يا بتسوي برك ummadda Allah idwaan u dagaalamaya ayagii waa dhibaysa waxa keenayna waxa waa fiqhi xumada iyo faham xumada iyo garasho la'aanta iyo mas'aladan oo ay xambaarsan yihiin dad aan ehel u ahayn ehelkeedii ma aha dadkii la siiyay ma aha dadkii shariicadu siisay ma aha dadkii loogu talagalay ma aha mar haday dadkeedii dad aan ahayn ay ciyaarta matalayaanna wax badanna waa khaldamayaan wax badanna waa la sugaya wabillahi tawfiq جزاه الله عن الشيخ خير الجزاء مركب محاضرة أنتنا كسو كوينا لبس عيبر تقريبا وي شيخ نسكت دالني هاي وحي سؤال قد تكني شيخ إنه يقف كسيجار أنا دو ويديني كرا